ilaahay baa mahad leh iskugu keenay inaynu maanta soo booqano daamka casriga ah ee laga qoday duleedka gobolka degmada baligubadle ee gobolka hawd runtii baahida gobolka hawd ee koobaad waa biyo baahida labaadna waa wado ama waa jid baahida koobaad oo ah biyo Soomaaliland oo dhan iyo gaar ahaan gobolka hawd oo maanta joogno waxay u qaybsantaa biyaha dhulka hoostiisa ku jira iyo biyaha roobka oo aynu qabsano runtii waxa ogeydeen oo ka warqabtaan in riig laga dhagax dhigay bishii hore gobolka oo si dhakhso ah isagu uu bilaabi doono in biyaha dhulka la soo saaro riig hore oo shirkadda Al-Khayr ay ku deeqdayna uu joogo gobolka marka in labada riig ay insha Allah taala biyihii dhulka gobolka ay soo saari doonaan daamkan casriga ah aynu maanta joognaana wuxuu ka mid yahay dadaalada aynu ku doonayno biyaha roobka inaynu qabanno oo aynu uga hortagno biyo la'aanta ay keentay abaarta iyo roob la'aantu waa sida ka muuqda daamkan aynu maanta dul taaganahay waa daam casri ah waa daam facilitieski loo baahnaayo oo dhan leh haday noqoto waraabka xoolaha iyo haday noqoto kacabitaanka ama waraabka dadka iyo duunyadaba waa daam facilitieski iyo adeegyadii loo baahnaayo dhan way u dhameystiran yihiin runtii waa daam casri ah waa daamamkii ugu casrisanaa ee wadanka laga dhiso ayuu ka mid yahay runtii waxay muujinaysaa in gobolku arrimaha xasaasiga aynu ka hadalnay uu runtii horumar ka sameeyo arinta wadadana waxaan doonayaa anigoo ah wasiirka hawlaha guud inaan dadka ugu bushaareeyo in wadadii baligubadle ay sanadka lagu daray qorshaha shanta sano ee qaranka oo ay ku jirto prioritiska koobaad wadada Hargeysa baligubadle inay insha Allah shanta sano soo socda ay u qaranku dhameystiro dadka community-ga reer baligubadle ama ka soo jeeda gobolka hawd waa inay iyaguna ay ka qayb qaataan wadada sidii loo dhameystiri lahaa qarankuna ahmiyad weyn buu iska saaray iyo madaxweynaha qaranku inay noqoto xaruntii halganku gobolada ugu horeeya ee wadooyinkooda la dhameystiro sidoo kale degmada baligubadle oo ah degmooyinka ama magaalooyinka ugu waaweyn maanta wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii aad u koreysana inaynu wada ka sameeyno iyadana waxa weeyaan qorshaha dhow ay noogu jirtaa insha Allah waanaanu ku dadaalayna in aanu ka dhabayno inay wada yeelato baligubadle magaalada dhexdeeda insha Allah waxa soo dhani waxay runtii muujinayaan dadaalka xukuumadda madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraanyo uu hogaaminayo iyo wasiirada ka soo jeeda deegaankuba ay iska kaashadeen in gobolka horumar la taaban karo laga hirgeliyo waxa ka warqabtaan inay saxaafadda aad ugu badan yihiin rag ka soo jeeda gobolka ama deegaanka oo ahaan jiray wasiiro kuraastan aanu fadhino 5 sano u dambeeyay ama 4 sano u dambeeyay ku fadhiyay oo runtii aad mar walba TV-yada ka daawataan iyadoo farta luxaya oo runtii baanaya oo xisbiyada mucaaridka u hadlaya waxa aanu u sheegaynaa dadku iyo siyaasaddu inaanay ahayn runtii afmiishaarnimo inaanay ahayn dadka oo la majara habaabiyo dadka oo ficilkaaga shakhsiga ah ama danahaaga shakhsiga ah runtii mar walba lagu majara habaabiyo inaanay ahayn ay siyaasaddu tahay wax qabad muuqda taasaanan u sheegaynaa reer baligubadle iyo reer gobolka hawdna waxaanu leenahay qof walba malafkiisa siyaasiga ah intii uu xilka hayay waa inay hor dhigtaan marka uu waxayni ka doonayo ee uu si siyaasi ah waxayni ka doonayo raggii kuraasta shalay ku soo fadhiyay ee aad maanta TV-yada ka daawataan ee iska daa horumar ay gobolka oo ay ka shaqeeyaan maalin kaliya aan dadka dareen la wadaagin ayaa maanta arkaysaan sida ay u hadlayaan dadka u dhaliilayaan xukuumadda u dhaliilayaan annagu waxaanu idinku bushaareynaa ama idin ballan qaadeynaa inaanu wax qabad muuqda oo la taaban karo ama wadaha noqoto ama riig la soo saaraya ha noqoto ama dhaam la qodaya ha noqotee inaanu dadka la hor nimaadno inta aanu xilka nalo igmaday aanu hayno aad iyo aad baa u mahadsantiin waana wax qabad runtii lagu faano maanta dhaamka weyn ee halka inooga muuqdo ee dadka reer Soomaaliland oo dhani ay daawan doonaan iyo dadka ka soo jeeda gobolka hawd waana wuxuu dabooli doona baahiyihii biyaha ee gobolka hawd haddii alla ka dhigo aad iyo aad baa u mahadsantiin